Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Home Design. Maanta waxaan samayn doonaa tutorial cashir ah oo maalin dhaaf ah ayaan soo dhigi doonaa channelkeena pagekeena YouTube-ka Somali Home Design. Naqshadaas oo ah naqshad 2D oo ah guri 13x13 ah ayaan samayn doonaa oo ka kooban 5 qol oo qol master room ah ku jiro iyo 2 musqul iyo jiko iyo veranda iyo meel parking oo baabuurka la parking ka daawasho ahaan maalin dhaaf ayaan usoo dhigi doonaa ka faa'iidaysi wacan. Assalaamu calaykum. Hawshaan bilaabeyna hadda. Unitiska number 1 iska saxina. Unitis markaan iska saxno then unitka halkan waxaan saaranaynaa mitir saad aragtaan mitir aan saaranaynaa halkaana 0.0 ayaa ka dhigaysaa halkaana 0.0 then okay aad leedahay okay markaad dhahdid waxaa kaloo iska saxaysaa gudaha DWG unitis intan aad leedahay 2 mar okay DWG unitis markaad dhahdid waa ka ku soo baxay kabacdi waxaa ka dooranaysaa mitir aniga mitir baan soo dooranay mitir baad dooranaysaa mitir noo door oo number 6 ah inter aad leedahay kabacdi yes aad leedahay yes calaamada yar marka ku soo baxdo yes halkaas ku qoraysaa yes enter okay DWG ga marka yes dhahayd iska leedahay wax kale meeshaas ugu baxaysaa then waxaan soo qaadanaynaa line-keena soo qaadanaynaa line-keena markaan soo qaadano then 13 aan sameynaynaa soo awal ballanka ah guri 13x13 sanna 13 khad markaas sidaan u sameyno offset ayaan sameynaynaa oo dhumucda derbiga maadaama bulkeet isticmaalayno offset markaan sameyno okay waad aragtaan markaad saas sameysaan waxaan sameynaynaa then waxaan leenahay then markaad halkaas joogtid ayaa waxaad sameynaysaa trim ayaa isticmaalaysaa geesaha iska jarjaraysaa trim markaad jartid geesaha ayaa jarjaraysaa trim geesaha ayaa jaraysaa geesaha markaad jartid trim halkana trim oo isticmaalaysaa trim markaad isticmaashid geesaha dhan okay geeskan offsetkiisana ay muuqan offset weli ma bixin kan offset bixinaa 0.2 ah okay offset 0.2 markaan baxno ayaa trim u isticmaalaynaa trim enter okay then marka halkan joogtid tutorial waa asxaabta cashirkan ha laga faa'iidaysto badanaa janisadan kale sida lagu helo adag tahay marka ka faa'iidaysi macaan then halkan 4 mitir aan soo dhaqaaqay saana 4 mitir aan qolkan kale intana soo baxay bacdeen qolasheeda 4 mitir kala sii bax then intana 4 mitir kala soo bax okay offset ayaan sameynaynaa 0.2 ah then qolkan offsetkiisa banaan ku baxi kan halkan u sii bixi then halkan u bixi kan halkan soo bixi then markaan saan sameyno trim aan isticmaalayna waxa kala soo hare limeskan kale ah trim markaan isticmaalno ayaa waxaan leenahay offset mitir 20 ah oo corridorkaan sameynaynaa halkan mitir 20 soo baxa leeyahay mitir 20 markuu soo baxo halkaasna mitir 20 soo baxa ilaan corridorka waa inuu same dimension uu ku qaataa corridor oo saana mitir 20 saana mitir aad uma qurux badnaanaysa dabcan okay ana waad aragtaan halka markaan sameey waxyaabahaas oo kale trim iskaga jiraysa hadhow hadaa ilowdid qaab daray naqshada ka dhigaysa trim oo kale iskaga qadaa waad aragtaan halkan isku fur qolka tartiib barantada markuu saan soo maray dhag laba albaab halkan marka hal qolaan gashanaynaa offset 3 mitir iyo 20 bax dheh then 3 mitir 20
then offset 0.2 aan gelinayna. Okay, marka halkan joogno ayaa waxaan sameynaynaa then offset intana 4 mitir nooga dheh 4 mitir enter dheh qolkan dhexe 4 mitir aan ka rabaa offset 0.2 soo baxa isagana offset 0.2 markaa soo baxdid then waxaa leedahay trim iga jar trim markaa dhahdid halkan iska jaraysaa waxyaabahan oo kale hal mar u imaanaysa trim aa leedahay trim then waad aragtaa halkaasoo kale trim aa u isticmaalaysaa hadda kanoo kale trim nagama yeelayo waa ileen leen meeluu haysta ma lahan oo haraadi hal maraas kaasna gadaal aan ugu imaanaynaa kanoo kale waa leen socdo trim wuxuu ku goonayaa leen socdo kanaa jiraynaa kanaa jiraynaa then okay halkaan noo dhiman kayba waad aragtaan filo okay jajabkaas yar sidana hal mar calaamada buluug aan saaranaynaa delete aan leenahay then aniga waxaan rabaa inaan meeshan oo kale almost room aan kasoo saaro maxaan sameeyaa qolka waxaan leeyahay offset aan leedahay 1 mitir iyo 40 soo bax mitir iyo 40 soo baxay 0.2 sii bax then waxaa leedahay offset deh 1 mitir 0.5 deh then 0.5 markuu dhaho okay then offset aa leedahay 0.2 kale then trim aan leenahay trim waayo jikada waa inaa yar aan yareeyaa spacekeeda si goolad yaro unagu soo baxo then kanoo kale ma go-aayo extend aan u isticmaalaynaa extend then extend marka u isticmaalo kana simply caadi u dooranaysaa sana delete gareynaysaa kaas kana trim u isticmaalaysaa trim enter extend yaa noo saaran trim noo saaran enter then marka halkan joogno ayaa waxaan sameynaynaa offset 1.5 offset 0.2 then halkan aad joogtaa trim aad isticmaalaysaa trim okay dhankan yana qasin naga bixi then waxaa leedahay halkan oo kale waxaa rabaa inaad baranto kasoo saarto kitchenka waa kana okay then waxaa sameynaysaa offset 2.4 soo bax halkan oo kale musqushi aan ka rabaa geeskaas musqushi
22 gudaha u gal marka dhamaantooda 10.2 gudaha u gal 10.2 gudaha u gal then trim isticmaal kana trim isticmaal okay kaasna iska dhig ka bacdi halkan space kan yar waa inaan iska hubinaa dimensionkan 1 mitir ka 5 waaye dimensionka saad aragtaaba meeshaas gudaha laga soo weyneeyaa dimensionka gudaha meeshaan waxaan ku qoraynaa dim style markaan qorno then dimensionadeena noo soo baxay modify baan ka dooranaynaa okay halkan waxaa ka dhigaysaa 300 cabirka aragtidiis waa 300 ma ahan 300 oo mitir ah okay waad fahanteen fila halkan text height waa tirada lambarka tirada dhererkiis inta laga rabo aragtida waxaa ka dhigtaa 350 waa inaa mar walba arrow size-kaada ka weynaysa arrow size waxaa lahaa geesaha falaartan geesaheeda waxaa la arrow size 300 ku tahay then waxaa leedahay architecture style iyo qaad okay tan architecture iga dhig then marka halkaas joogtida waxaa leedahay okay set current ayaa leedahay override okay kabacdi closes ka leedahay automatically hadda waxaan cabirno si toos ah ayay noogu soo wada baxayaan aan isla aragno halkaas iridaas waa 1 mitir ah anaga 1 mitir albaab ayaan u gelin doono waxaan gelinaynaa albaab 90 taqriiban meelahaas oo kale ah tada kale qolkan hadduu meesha 1 mitir ay kugu yarta xataa waa sakin kartaa waxaa leedahay 0.3 or 0.2 baxa dheh then extend u isticmaal extend markaan isticmaalno intaan ka badan guriga baabuur ma soo galaa qof bini'aadan kama weynaan karaa then waxaan leenahay okay designka sidaan u diyaarinay then geesaha waa inaa iska hubisaa inay isku kaa furan in kale halkan waa sidoo kale trim waa check up naqshad waxaa qurxiyo kaliya waxaa waaye lemiska inay kala go'go'aan then markaas sidaan joogno waxaan samayn doonaa albaabka insha Allah xiisada dambe albaabkana samaynaynaa